caleemasaarka? maalmihii ugu dambeysay November si xoogan ayaa looga dareemayay deegaanada Puntland caleemasaarka madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa oo dhawaan 8 January lagu doortay magaalada Garowe. caawa la filayaa in si toos ah uga dhacdo xaflad weyn caleemasaarka ah magaalada Garowe. waxaa kasoo qayb galay madax aada u kala duwan, madaxda maamul goboleedyada oo maalinimadii shalay yimid, madaxweynaha dowladda federaalka oo la filayo in maanta uu soo gaaro magaalada Garowe si uu uga qayb galo. shalay waxaa kasoo horeeyey wafdi wasiiro ah, marka si weyn ayaa looga dareemayay. dad kala duwan aa yimid, siyaasiyiin aa yimid, fanaaniin ayaa kasoo qayb galay, dadweyne sidoo kale xiiseynaya inay goobjoog ka noqdaan caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Puntland ayaa iyaguna yimid magaalada Garowe. marka waxaa la filayaa un qaabka ay u dhici doonto iyo sida ay noqon doonto caleemasaarkan caawa la filayo in lagu soo afmeero magaalada Garowe oo siyaasiyiin intaa la eg iyo madax intaa la eg ay kasoo qayb galayeen. dhinaca ammaanka bal ka waran qaabkee loogu diyaar garoobay? hay-adaha amniga iyo guddiyo loo xilsaaray inay arrimahan ka shaqeeyaan. guddiyadii tan iyo xilligii doorashada la gudagelayay iyo intii ka horeysay ayaa ilaa iyo imanka si xoogan u shaqeynayay. waxaa jiray qoraallo dhanka xafiiska madaxweynaha kasoo baxayay oo guddiyadaasi amniga soo gaarayay oo iyagana ku saabsanaa in caleemasaarka maadaama ay kasoo qayb galayaan dhinacyo kala duwan sida dowladda federaalka madaxda ugu sareysa, dhinacyo federaalka kasoo horjeeda oo qeybo kala duwan oo ka imaanayay dalka Kenya iyo magaalada Muqdisho ay kasoo qayb galayeen in arrimaha ay warqada kasoo baxda dhanka madaxtooyada ay qeexaysa ay kamid ahayd in aan laga bixi karin arrimahan caleemasaarka oo iyagoo ka baqaya in arrimo siyaasadeed loo adeegsado maalmahan ay joogayaan martida iyo ka qaybgalka caleemasaarka. marka arrimahaasi ayaa ahayd arrimaha ugu xoogan, hadalhaynteedana ay soo badanaysay maalmihii ugu dambeysana si xoogan looga hadalhayay magaalada Garowe, taasoo xataa ay ka dhalatay shalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiga inta uusan imaan magaalada Garowe, siyaasiyiin taageersanaa iyo sidoo kale taageerayaal kale oo watay calamada barnaamijkiisa laga hor istaagay in garoonka diyaaradaha ay ku lulaan, taasoo dad badanna ay kasoo horjeesteen oo ay yidhaahdeen waxaan ka xunnahay in siyaasigaasi dadkii soo dhaweynayay laga hortago ama laga hor istaago in garoonka ay tagaan amaba ay muujiyaan taageerada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay u hayaan, taasoo wax badanna ka bedeshay sida muuqanaysay ilaa iyo shalay sawirka guud ee arrimahaasi ku saabsanaa. madaxweynaha cusub maxay tahay waxyaabaha ay shacabku ka filayaan marka dadka la sheekaysatay? intan madaxweynaha maalintii la doortay ayaa la dhaariyey, imanka waa caleemasaarka oo la filayo in caawa lagu soo gabagabeeyo magaalada Garowe. marka laga soo tago khudbadaha la fili doono in madaxda cusub ee Puntland oo maanta hadalka ay yidhaahdaan ay ku xiran tahay dadka filashadooda iyo siyaasiyiinta kale ee kor ka imaanaya hadday noqdaan dhinacyada dowladda federaalka kasoo horjeeda iyo madaxda ugu sareysa ee Soomaaliya ama dowladda federaalka laftirkeeda. marka laga soo tago madaxweynaha cusub maalmihii ugu dambeysay dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ama reer Puntland waxay aada u hadalhayeen madaxweynaha cusub wasiirada laga filayo in uu horkeeno dadka